السلام عليكم سؤال أصحابتا ما أنت صاحب يلا واحد شرح دونا فيلم آدي حساب بدن والله مقعوا تامبي إنفاضة أنت أنا مقال كان أوجد قليل وحن كعسني عديات صاحب نقعصب فضلا كان لك سبسكرايب صار سدوا كل مقال كان لاكسر وكان الفيلم كي إدا وشوعا صاحب يا الفيلم كو وحكى باللبنية قصريان وقصري آدد أمانك سواد جاي سدوا كل واحد يلا جوهر إيه وحياة فربضان بس أكبرها waxay rabaan in la soo baxaan juhaartaasi adeegaas sidoo kale gabadhan waxa la socdaa wiil kale oo saaxiibkooda wiilkuna qasriga ayuu gees ka baarayaa iyagoo meesha dhaban ay si loo filan wax ku maqleen qaylo balse wiilkii oo la dilay ay u imaanayaan ilaa haddana wax dilay wiilkan ma oga kadib gabdhii wax badan oo calacal kadib waxay ogaanayaan meeshan in dad kale ay joogaan kadib gabdhii wax sameeyaan inay meesha iska soo cararaan sababtoo ah naftooda ma ku aamin helayso meesha waxay kaleeyaan buug markii buugga soo qaataana kadib way iska soo baxayaan meesha maadaama naftooda ay khalkhal ku galaya kadib gabdhihii gabar kamid ah ayaa haddana marka la dhaawac soo gaaraya balse gabadhii luulkii meesheeda ay ku celinaysaa kadib way soo cararaysaa way soo qaadanaysaa bahal weyn oo mataqaan jawhara kadib waxa uu imaanaya nin kale oo meesha banaanka ku sugayay kadib wuxuu ku qoonaya xabad wuxuu leeyahay alaabta aniga ee iskale haddii kale waan ku dilayaa balse gabadhii waa iska dhicinaysaa kadib ciidamo kale ayaa soo weeraraya ciidamadii kalena waa iska celinaysaa kadib gabadhii way cararaysaa oo cagta ay wax ka maalaysaa meeshaan dhan way iska fogaanaysaa gabadhii waxay carartaba waxay ku laabanaysaa magaaladeedii oo caadiga ahayd waxay u tegaysaa asxaabteedii waxayna leedahay waxaan soo ogaaday qasrigii ee meesha uu ku yaalo weli waan ku baxaynaa si aan uga soo qaadana alaabtaas waxay tusaysaa buuggii ay soo qaadatay waxay la hadlayaan saaxiibkood si uu u raaco meeshana uga garab siiyo balse saaxiibkood wuxuu leeyahay soo diyaar garay waan israacaynaa maadaama ay soo qaadanayaan alaabtaas kadib asxaabta dhammaantood way soo diyaariyeen markaana waxay rabaan inay soo qaataan alaabtoodii jawaartii ayna qasrigii aadaan markaan halkan ayay ku tashanayaan saaxiibkood wuxuu siinayaa talo si ay u guulaysan lahaayeen yacni qasrigaasna ay u aadi lahaayeen markaan waxay ku cuntoonayaan meeshan kadib waxay ku tashanayaan inay baxaan oo meeshaas ay kasoo guulaystaan kadib ameenka ay ku midoobaanaya halkan ayagoo raba inay iska seexdaan ayaa wax soo weeraraya niman cawaandiya oo kaynta degan cawaandii markay iska difaacaan balse mar allaala markay iska awood bataan kadib asxaabtii mid kamid ah ayay cawaandidii qabanayaan halkaasna cawaandidii way ku wadanayaan balse asxaabtii way weynayaan saaxiibkood meel u aaday markaana raadin ayay ugu jiraan si saaxiibka usoo heli lahaayeen nimanka cawaandida ahaana way wadeen ninkan waxay u geeyeen ninkii ka sarreeyey yacni oo madaxdu ahaa ayay u geeyeen asxaabtii kale markii ninka ay u geeyeen wuxuu leeyahay maxaa meesha ka qabanaysid maxaa soo doontay balse ninkii waa us adkeenayaa wuxuu uga tegayaa laba kale oo asaga shaqaaliisa uga tegayaa balse asxaabtii kalena ilaa hadda asaga ay raadin ugu jiraan meel walba ay ka goobayaan markaan asxaabtii waa iskhilaafayaan waxayna gabar kamid ah gabdhaha leedahay aniga ayaa goobaya intiina kalena meesha ugu sugaa markaan asxaabtii kalena way ka yeelayaan sababtoo ah ayaga ayay u direen markaas kadib gabadhii way soo baxday markaan waxay ordaysaa keenta dhexbartinkeeda waxayna rabtaa inay asagii gacan kusoo dhigto ilaa haatan wax war meel asxaabtii kalena wiil ayaa ka dhaawacmaya kadib wiilkii uu caafimaadaya way soo baxayaan markaan gabadhii iyadoo keenta ku dhudhuumanaysa waxba la socon ayaa nimankii cawaandidaha ayaa soo qabanaya markaana waxaa loo geeyay saaxiibkeed meesha uu ku xiraa balse gabadhii si xirfaysan ayay rabta markaan iyagu baadido meesha nimankii tuugadaha ayay baabiinaysaa kadibna markii ka awood badido waxay soo wadanaysaa saaxiibkeed oo gacnaha ka xiran kadib saaxiibkeed gacnaha ayay ka furaysaa waxay u celinaysaa asxaabtiisi kale markaana way guulaysteen asxaabtii kale iyagoo ciyaaraya balse nimankii cawaandidaha ilaa hadda ma harin mar kale ayay soo weerarayaan iyagoo meesha ka baashaaraya kadibna warma ay ku qabanayaan waxay leeyihiin maxaa meesha ka qabanaysiin balse asxaabtii kale waxay leeyihin waxaan rabnaa inaan qasrigaas galno nimankaana waxay leeyihin waxaan rabnaa inaan qasriga galno kadib waxay leeyihiin annagu iyo idinku isku wadda ayaan nahay marka maxaa isku dagaalanaa qasrigaas aan wada galno kadib dhammaantood way soo baxayaan markaana waa xilli habeena balse kuwaana waa sheekanayaan nimankan ilaa hadda kuma aamin qabaan shaki ayay ku jiraan kadib subaxii way soo baxayaan waxay soo dhex marayaan keenta waxayna wataan buuggii ilaa hadda kama dhigin meel walba oo qasriga ka xigo buugga ayaa u tilmaamaya kadib markii ay wadada helaan waxay imaanayaan meeshii qasriga ayay imaanayaan markaana qasriga ay isleeyihin markaan gudaha u gala qasrigan way ka baqayaan niman kale oo bahla ayaa jooga markii qasriga ay galaan waxay arkayaan godkii uu ku jiray buuggii luulka kadib markii qasriga ay gudaha u galaan waxay soo qaadanayaan bahalkii luulka ahaa balse ilaa hadda waa shakinayaan iyagoo meesha jooga ayaa mid kamid a laga dilayaa balse marka waa ay baqayaan waxay isku dayayaan inay meesha ka baxaan balse godkii ilaa hadda wuxuu bilaabaya inuu dudumo gabar gabdhaha kamid ah ayay u xelaysaa jijin gabadhii markan waxay fiirinaysaa buuggii meel allaala meesha ay ka jirto safety balse buuggii markii allaala ay ku mashquulsan ayaa markale wuxuu bilaabayaa qasriga inuu dudmo sababtoo ah markaan waxa ku jira numbalaa balse markaan inay ka cararaan ayaa rabaan balse ugu dambeyn waxay gacanta ku dhagaan baalkarka oo luulka wax walba u fududay lahaa
kadib qasrigii dhammaa ayay geesaha ka marayaan balse markan waxay soo weerareen nin bahal oo weyn kadib ninkii bahalka way dilayaan ugu dambeyn waxay gacanta ku dhigaysaa gabadhii meeshii ay taalay baashi safety weynaad safety ee gacanta ku dhigaysaa asxaabta dhammaadna waxay ogaanayaan markaa inay guuleysteen ugu dambeynna halkaas ayuu filimku ku ekaaday asxaabta kalena way soo guuleysteen oo safety gacanta ku dhigeen asxaab muuqaalkan halkan ayuu ka egay asxaab muuqaalkan like sar una sheer galay asxaabtina kale